bilaabanaysaa maalinta carafa waa goorma, maalinta ciidane waa goorma. bishaara idiin haaya maxkamad culya oo sacuudiya waxay cilaamiyeen in ay biri oo arbaco ah bishana ay tahay May 28 2025 ay tahay maalinta ugu horeyso ee bisha Dhulxijja. macnaheeda waxa waaye waa la arkay, bisha waa la arkay, ayagoo reer maqrib oo tahay waa la arkay. haddii 38 oo arbacada ay tahay maalinta khamiistan saddextan ma aha tan ku xigto, maalinta khamiista ah bisha Juun ay 5 tahay waa maalinta Carafa. waa kusii xisaabtan meel kusii qoro, maalinta khamiista Juun 5 ay tahayna kusii xisaabtan waa maalinta ay tahay maxaa waaye maalinta Carafa, maalinta la soomayo. maalinta Jimcaha Juun ay 6 tahay waa maalinta ciida. waa idan waxaan naqaanaa maalinta Carafo tobanka maalmood goormay bilaabanaysaa? arbacada 28 May bilaabanaysaa. 9 maalmood ma la soomi karaa? fadligooda maxaa waaye iyo waa kasoo hadlayna insha Allah taala. hadda waxaan rabinaa idiin la wadaago bishaaradaas oo ku saabsan tobanka maalmood ku saabsan. alxamdulilah hal xadiid aan rabaa inaan idiin la wadaago. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay ma min ayaamin alcamalu الصالح fiihina axabu ila Allah min hadihi الايام. maalmo ma jirto oo camalka wanaagsan ilaahay jecel yahay oo maalmahan ka fiican. macnaheeda waxaa waaye camal kastaa samaysid maalmahan ilaahay subxaanahu wa tacaala aad u jecel yahay. camalada la sameeyo maxay yihiin? kan ugu fiican maxaa waaye? nabiga sallallahu alayhi wasallam waxyaabo badan oo noo sheegay. takbiirta kamid ah, soonka kamid ah, iyadoo detail waa idiin soo gelin doona insha Allah tacaala. allah idin barakeeyo. fadlan kusii xisaabtan jadwalka gasho. 9 maalmood haddaa soomi kartid soon, haddaa soomi karin waxaa soontaas inta maalmood ka soomi karin. haddaadan soomi karin maalinta Carafa ku dhaafin. khayr allah idin siiyo. jazakum allah khayr, barakallahu fiikum. salaam. fadlan sii gudbi walaalaha kala sii